أسلوب مالي وناكسن صبح خير غبا إلهي النوغة ديغو وسلامتي waxaa nin baa iga horeeyay oo dad baa iga horeeyay midka kanu tali xigeenkayga waa nin heese oo gabyo oo waa hadli ogya marka aniga wixii waraasa noo qaabilsan ana dhowr kelmadood aan dhiibanay وايد سلامي مرلبات سلام كبعدي كوحدي أنقذ دين بانكل هاي دينتي إسكي قدي وما حصل إلهي هدو إلى هذا إلقارهم كوهين دونا كوحد أنقذ باند موسيقى أسلوب تودن إلقارهم كوهين دونا توا قضب كلا هذا إيه حاجة قاشان لسرع عقدر وحو يقول دار ماي aan lagu barina adiga baro waa la baraya anigana waa baranaya taliyaashi la magacaabay nin kamid ah oo mar arkay wuxuu nagu yiri maxay ahayd ciidan barashan ku jira haddaan asluuban baranaya ilaaho ciidanka intaan la eg aan meel u fariistay waa habsaama ما هبساماي مرك أنا أيها بوحنا لا نقولنا تلي أونجيو تلي كوحيو تلي هورينو يعني لا نقولنا جانا نذا إيه لبده تلي حجاري يعني قبل وإذا بقى لنا وانهرد يا ميدان نسكت عينا مركز نسكت عنا وعلى عبد كريم كان حال كيس محوها أنت أنا قصر راعي حال كيس كور أصاب كور بحندر واسوق كور كان أيها بكور بحندر برشة هالكاسن كبلا بيا هذا ما مو فريستوا هبسامة مو فريستنا أقدر أديك تاسل صار تنكله كنت سنضد كل واحد عيدنا تتكلم عن سكول الله ده هنا وملانا أني سد حيت تبعتنك بيشي شنات هذا إله كودي دنيا عيدا قرتي ما وينين سدادي تونجرانا إلا يحل جنب وحكة لما قبل حتى الدولة بالبرتي هذا النقطة يعني نلا الشيء ده بقولي قاسي لا نولي مرك عسكري جوا برانكرا سيدك ده هنو برانكرا عسكري جوا مت أما ميليتري هذا أما بوليس هذا أما أسلوب هذا أما نبي هذا أفرت عيدا أو دلك أوليه واسكمت ماذا بقولي بالله قد تجي أهرب سيجري جري وهذا كتير يقول وهذا اللي يجري مركا أفرت عيدا ما أنت جرت مركا كسر قادم واسكمت واسكو شرعي واسكو دقن من نمتك كلا كبدونا لكن محابر الشيء باها سبتو سيء جرنا ذا عن كلا سيئين حالكود والكورنيل كان ماشي أنا أقول بتكورهم وحاس مارتي شاكذا وأنتان برشة ورتال كانوا كجرتا من إنشقاده كفي عنا من إنشقاده كحنبا لما أسكري ميل وذا جوكته من نوع شقة في عين من نوع شقة حمان كرا وأنتان وحلا برناي وحكلا أو برناي ماشي على مجران ولا لي الوحان قاعد أن قضب كأ شغالي أمد الصوماليات أي عيدا كأسلوب تقول الستي oo baahi baa loo dhisay baahidii ayadahayd oo lagu ogaa inaan gudano waa qodobka koobaad kan ugu muhiimsan muxuu yahay marka asluubulada asluub waxa waaye haynta maxabistan haynteeda ilaaladeeda waxaan ku darsanay waxbaristeedii iyo maartay gacan ku haynteeda aqoonteedana le maxabiisteeda ina le horta shaqadana koobaad qodobkan waay haynta maxabiistan haddaan ka bixi weyno macna asluub ma jirto waay sheekadeedu waa saas waxaan noo labay shaqada amniga uu dalka leeyahay iyo difaaca qaranka ina qayb baan ku leenoo ayadana waa ka qayb qaadanaynaa ciidan baan una شقة أسلوب واب أنت
askarina shaqadiisa waaba inta tan ama gudaha kula haada ama dibadda kula haada askari shaqadiisana waa inta ayda waxa wehlii kala dambeyn iyo dishibiliin iyo ismaqal oo shacabka kaga duwanahayna inaan ku dhaqanno oo aan qaadano maxaa soo baxay marka wanaag iyo xumaan iyo barasho halkaas ay ka soo baxaysa annagan intaas mas'uuliyadina la saaray oo maanta asluub oday ugu ahay intaas ay ka bilaabata okay qabiilka inaan ka dheeraano waa isfarnay waa lagu heesay kooxdaaba ku heestay horeyna waa isu farnay horeyna dad baad u fari jirteen war qabiilka naga kaxay midnimo aan cuskanno Soomaalinimo aan cuskanno yoolka naga koobaad oo aan hiigsanayno waa taas yaa wax dalacsiin kara saddexdayadaan inta saaran ma aha wax dalacsiinaayo oo askariga inay dalacsiyaan laga rabo taliye unuga taliye kooxda taliye fadhiga sheekadu halkaas inay ka soo baxdaan la rabaa hoggaan buu hoostaga hoggaanka asiga uu soo maro sheekada halka ay ka timaado la isla baaraan dego askari wanaagsan askarigaan u garanno awoodeeda annaga leh annaga dalacsiinay waxa lagu dalacsiinay ninkana waa la soo qoraa wax dheeriga uu gutay oo abaalgudkaas uu ku yeeshayna waa la soo qoraya waa la soo raacinaya waa ku dalacsiinayna laba mutaysiya jirta marka nin wanaag buu mutaysay wanaag baa lagu abaalmarinaya abaalmarintiisa maxay ka bilaabataa amaanay ka bilaabataa askariga hadii la amaano waa dalacad haddii beesa la siiyana oo lagu berimiyaarayana waa dalacad galkiisa ay geli haddii alifka laftiisaba la siiyana waa dalacaduna leenkaasay leedahay oo maxaa lagu dalacay hawl fulin hawl dheeriya daacadnimo oo qaadasho amar qaadasho hufnaan sheekooyinkaas la soo qoray ninka saanu ku dalacay tawaad dalacad wadadaanay haysaa wadada labaad ninka ama bareemiyo hela ama bunsiyoon helaya ganaaxu hela meel dhaxal la iskama fadhinaay inaad meel dhaxal fadhidaan looma fadhiyaba ha sugin arinta ayada xilaa loo dhiibi karaa ninka haddii xil loo dhiibo dalacad ay ku jirtaa taasna ha la ogaado asluubay ha la ogaado ninka gabadayna geel ma soo rido mi ahayd maamaadi adinka geel qaada jiray anaga geel qaado shaqal kuma lahayn anaga ya ha ninka gabanay maayno okay nin dhuuntay kolba laab oo darbiga ka laabtay oo meel isku qarqariyayna waxa aan sheegayna ma helay wuxuu helayaa ganax buu helayaa ganax ka bacdin ruqsu ba helayaa xaqiiqo waa ma baaqat digniin la sii asna sidoo kale maxay ahayd ganax lagu dayo hadduu soo toosi waayo ruqsa laga qoraaya waadna arki doontaan taas baabkeedana waa saas maxaa soo hara taas askartii waayi idableeydi nidaamka oo dalacsiinta aan ka hadlay ninkii sarkaal oo xidig wato oo mutaystana dalacadeeda madaxweynaha iska leh asaan u geynayna kanoo kalaba lama arag dhinacaanu ceel baasiina ka qoday kowdhe madaxweyne noo feermee baan leena kan dalacsi dalacad meesha iiga harta ganaxna warkii wakaa barnaamijyo iyo halkaasaan uga gud maxaa soo hara dad xiniya leedahay xiniyaha soo ma ahayn irid intaadan soo galin banaanka ku soo duugo ma ahayd mise ma ahayn ya askari aan ahay xiniyaan leeyahay meel islama gasho ninbaa waxaa la leeyahay waardiya matal baan ka soo qaadayna adeerow waxaa kuu jooga ilmo waxaa kuu jooga islaanti dhashay allah kuu daayay caruur bay dhashay biil bay kaa rabtaa biilkeeda inaad u shaqaysay adiga kaa rabtaa adna ma rabtid inaad shaqaysay maqaayadeen inaad qaadato ilmihii u geysidaad rabtaa meel islama gelayso ma isla gelayso meel taas inay meel isla gasho looma fadhiyo shilinkaan la qaadanayo shaqaa lagu qaataa
ciidan iyo ummadan iyo dalkaana loogu shaqeeyay kaasaad ku helaysa ilaahay idinkii hadii shaqadaas aad diidid annagana waxaan loo soo xilsaaray ninka shaqeynay oo wadanka u shaqeynay iyo ninka aan u shaqeynaynin oo mataqaanad yani aan qeyl ka lahayn inaan kala saaran annaga naga la rabaa taasana loo soo diray ma ahan inaan waardiye qaban kugu colaadin maynay shaqada xun ku ka waxay xun samee ilmahaagay ka goonta hadhow ninna ha eedin adiga is-eeg waxaan u mahadcelinayaa ciidanka asluubta ciidamo dhisan oo isyaano leh oo runtii sidii ciidan laga rabay ah waay waxaa la yidhaahdaa ritiga hore ritiga kan dambe kan horuu saanqaadkiisa leeyahy maadaama dad isyaanaha oo ciidankii asluubta dadkii laga aasaasayba in meesha fadhiyaan waa jiidanayaan ninkii cusub oo maanta dhalinyaro oo kusoo biirana waa ritigiyo xarigaasu raacaya ciidanka asluubta dishibiliinkiisii ismaqalkiisa meel koraba inkastoo aan ka soo galay aan ku cusbahay aad u fiican waa ugu mahadnaqaya maxaa nagala rabaa marka waxaa nagala rabaa wax uun inaan ku kordhino marka mar haddii generaalkii qayb kastaba ha ka gale waardiyihii uu saaran yahay laba xidigaan wataa iyo kabtanaan wataa xidigaan wataa iyo sheekada ayadaa macnaha haddii waaba sii orodoo askarigay la jiraayaan askariga dablahay la jiraayaan qof ku xumayn maynay shaqadii baa nala gasho saas shabaab nin la yidhaahna daba taagan nin walbana waa ha waardiyeeye lama dhihi karo saraakiisha mas-uuliyaday ka saaran tahay inferiore iyo superiore la dhaha inferiore oo dhan waardiyu gala baaraha waxaan ku qoraynaa kontaroolada adar haddaad diididoo atagi diididood amar diido maxaabad ka caacaytami adiga ilmaha unbaa iswarsan doona kabacdi adigaa shallaayi doona waaga beritaa markuu baxa asluuboo dhan intay jirtaa ma idin sheegaan asluuboo dhan qof naga maqnaanayo ma jiro kawaanka malayga annaga xagga wixii ka jiri shuqulku mali ilaa dekada wadadan qashinka labadiisa dhinac yaallo beri annaga ololahaas xaaqayno waa maqlaysiin nin walba iskoobihiisan qaadanayna waa xaaqayna qashinkaan maxaa ku dhex jiroon ka cararayna horta habban baa lagu gelinahay maaskaraminta miinada korka laga saara qashina waxaa lagaaga dhigaya biyaa lagu rushaynaya miinada yub markii la geliyana xagaayadaana lagu dari raad male ka bacdi qashinkaana lagu kor saaraya adoo indha la-aan aad maraysaa waa kula kacday micni qashinkaba haddaan iska xaaqno maxaana loo kor saaraya raadkaan ka ilaalinayna xalayaa maray inta arrimaha noocaasna waa wax noo yaallo waay baabuur iska rogayaalaan leena qashinkaan waa kuusaynaa laamiga labadiisa qar waa ku shibayna asaa duurka naga geynaya annagaa isbadbaadinayna macnaha badbaadadanaday ku jirta kow saraakiil waan ka hadalnay gaashaanle waa kaababoosta saddexda ranoo ka hoosaysana maqaayidaas kala weeyo aan sheegay tan ka korayso gaashaanle dhexe ilaa gaashaanle sare heegan waaye guud hadday soo fakatana nimankaa xidigaha waaweyn wato aan ku jirana waa gelaynaa waardiyaha hadday ayga ka soo fakato tanna ha lala socdo maalinta beriya oo jimcaha waxaan iska xaaqaynaa qashinka asiga cabdikariin iska rogadi keen iska rogaan leenahay subaxii nin walbow soo diyaargarow imow aan lagaa waayin meesha fadhi kasta ninkii xukumay keen ciidanka beri ololahaasaan isku og dad nool oo muuqda aan noqono wixii aan raadinana ilaahay idankii waa helayna waa ku dadaalayna dowlad baan leenna dal baan leenna ciidan dowladeed baana ciidan jabhadeed ma ihin waxaan rabnana waa helaynaa ilaahay idankii waa la helaya dowladnimadan aan aamino qarannimadan aamino waajibkana saaran aan aamino qabiilna aan ka dheeraano horumarinta dalkan maanta inta amnigiisa aad arkaysaan horumarintiisa iyo amni ku soo celintiisa iyo kala dambeyntiisa dadka laga rabaan waax ka nahay micnaa oo aan ka midna nin walba niyadaada gali asluubaan ahayle meel ha la fadhinin intaasba inay ku sugayso oo ninna kaa xigin inaad ogaataan ku kala tagayna waqtiga waa la gaaray maanta intaanan ku gaabsanaa wixii kaloo soo babax waa isla arki doonaa waana mahadsantiin asluub waa idin mahad celinayaa soo dhawayntaad ii samayseen iyo dadnimadii taasna waa idinkaga mahad celinaya
وبالله التوفيق.